kadib markii ay gabadhan heshay jacaylka nolosheeda waxa ay la kulantay niyad jab sababi gaaray in ay nolosha isdhaafiso. gabadhan waxaa lagu magacaabaa Geraldine, waa 20 sano jir, asal ahaan ka soo jeeda wadamada Afrika balse haysata dhalashada wadanka Ingiriiska. waxa ay ka howlgashaa isbitaal halkaas ku yaal. intii ay ku guda jirtay hawsheeda ama shaqada kalkaalisnimada waxa ay isbarteen nin British cadaan ah oo lagu magacaabo Aldo Cataldi. isbarashadooda kadib waxaa dhex maray xiriir saaxiibtinimo oo aad u xoogan. muddo kadib Aldo waxa uu isaga tagay hawsha kalkaalisnimada balse ma uusan goyn xiriirka saaxiibtinimo ee kala dhaxeeyay gabadha asal ahaan ka soo jeeda wadamada Afrika ee Geraldine. la dhaqankiisa wanaagsan iyo sida uu ihtimaam u siiyo gabadhan asal ahaan ka soo jeeda Afrika waxa ay Geraldine ku lisay in ay jacayl xad dhaaf ah u qaado, laakiin marnaba uma sheegan jacaylka ay u qabto maxaa yeelay waxay aaminsaneed in isaga dhankiisa ay ka tahay saaxiibtinimo oo kaliya. balse nasiib wanaag Aldo isaga xitaa waxa uu dareemayay dareenka ay u qaaday gabadhan lagu magacaabo Geraldine. markii uu soo bandhigay in uu jecel yahay doonayana in uu guursado iyadoon ka labalabeen ayay aqbashay. Geraldine iyo Aldo maalmo ay ku wada noolaayeen nolol ay ku dheehan tahay farxad, balse noloshaas ma ahayn mid sii socotay muddo dheer. maalin maalmaha ka mid ah Geraldine waxa ay xanuun ka dareentay dhanka dhabarka waxayna aaday isbitaal, balse natiijada baaristii lagu sameeyay waxa ay dhaqaatiirta u sheegeen in mid ka mid ah kaliyaheeda ay fariisatay, sidaas darteedna ay u baahan tahay in maalin walba la dhaqo labadeeda kaliyood. isla markii ay maqashay natiijada baaritaankeeda waxaa soo wajahay Geraldine niyad jab iyo walwal aad u xoogan. laakiin gacaliyaheeda Aldo Cataldi ma uusan niyad jabin, waxa uu u ballan qaaday in uu garab siin doono ilaa iyo ugu dambeyn. markii uu Aldo ka soo laabto shaqada maalin walba waxa uu ku soo mari jiray isbitaalka isagoo siin jiray cuntooyinka iyo dawooyinka ay u baahan tahay. maalmo kadib Geraldine xaaladeeda caafimaad aad ayay u sii xanuunsatay, waxayna dhaqaatiirtu u sheegeen in laga maarmaan ay tahay in kilida fariisatay laga bedelo, isla markaasna ay u baahan tahay kili tabarucaad ah. balse gacaliyaheeda Aldo ayaa ku adkaystay ama u sheegay in uu isaga u bixinayo mid ka mid ah kiliyihiisa, isla markaasna uu baaritaan marayo. nasiib xumo dhammaan qoyskeeda iyo qaraabada waxaa laga waayay qof ay isleeyihiin ama qof kilidiisa ugu deeqi karo. sidaas darteed gacaliyaheeda Aldo Cataldi waxa uu qaatay go'aan aad u adag. waxa uu sheegay in isaga uu ugu tabarucayo mid ka mid ah kiliyihiisa, waxaana uu maray dhammaan baaritaanadii laasimka ahaa ee loo baahnaa. balse inta natiijada loo sheegin in uu kilidiisa ugu tabaruci karo iyo in kale, waxa uu u waday ama u kaxeeyay wadanka Portugal si uu halkaas ugu la soo qaato xafladda dhalashadeeda oo maalmo qura ay ka dhinaayeen. intii ay u dabaaldegayeen xafladda dhalashada gacalisadiisa waxa u soo dhacday natiijada baaritaankii laga qaaday Aldo Cataldi, waxaana loo sheegay in ay islahaadeen gacalisadiisa isla markaasna uu ugu deeqi karo kilidiisa. intii ay ku guda jireen xafladda waxa uu si la yaab leh ugu sheegay iyadoon marnaba filanayn in natiijada baaritaanka ay noqotay mid u wanaagsan labadooda, isla markaasna uu kilidiisa ugu tabaruci doono. balse Geraldine ayaa waxa ay weydiisay su'aal la yaab leh, waxayna ku tiri ka waran haddii aan kala tagno ama maalin haddii aan kala tagno. waxa ugu jawaabay ugu yaraan waxaan ahay qof badbaadiyay noloshaada. intaas kadib waxay ku laabteen wadanka labadooda lagu sameeyay qalliin si loogu kala bedelo labada kaliyood. markii ay xaaladooda caafimaad soo hagaagtay labadooda maalmo kadib waxaa dhacay xafladda meherkooda, waxaana uu dhacay taariikhdu markay ahayd 10 Agosto sanadkii 2019. haddaba daawade nala wadaag aragtidaada. haddii aad ku jiri lahayd booska Aldo Cataldi, kilidaada ma ugu deeqi lahayd gacalisadaada ama ugu yaraan ma ku badbaadin lahayd nolosha qof kale? aragtidiina noogu soo hagaajiya qaybta commentiga. sidoo kale haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar lana sii wadaag asxaabtaada. mahadsanid.